بسم الله وحالي يرها آذن حريت حسن أنت أسكبعدي ولا لياله إن سوق جارسي أيه كانوا وأم هالنقينا غير الله السيا بيها سو نسوق جاري عن أطبع على سنة هاي ددي الدنيا هذا أن أدور في السنة هاي ما أنت ندك وبتبادي جو بيه ولا عليه إنك ونسوق جارسيان وين مهسينين ولا عليه صادرين وأنتوا عينينا بقول كيف سجاشن إنه إلهي الجنة أيه الجنة فردوسي إلهي كورابيو ولا الله أنك وحنقعد سنينا لبكم ما أنت جرو إنه يقول بقى وإحنا يسي جرجاران أو وحترموين إنه كانان يعني كعد سنينا ولا رجال كي إنه كانان ومهتسينين وحن أقصي باهن هاي جرجار لبعض جرجار سدحات إنه ينسوا جرجاران وحدون تقران إنه كانان أو إنه قرب قبطان أو أن أنا أقعد عينا وأن أباهن هاي وإلهي هواري كور الناس ودلبينا على يجانا عمر جود الله ديريا كور نوكانا أنا عمر جود الله ديريا عبادة سن الله سيا وجرجار حجة ده إنا نلسيا أبارتي قدي الدنيا وإسكور الله نورت عرورتي إلى بالعامه واحدة قال لا يهي وحي حمام قرا وحسوع يا لا يهي ساك وان ولادين هذا ولا ريال كاين أي كانين إنا عمرسين عبادة سن الله إسيانا نقرقارتين ونوليسين ونصان وليسانا مرلوات مركدحات. بحان جوا تولد نور عدل اللي هذا وإنت كيلومتر وجل تعال واحد. فيها وحان سوق جرسي الإحسان ولا الله سوى ودعينا خير الله سيه وأنا محسين. بقول ومحسين. وحان قعد سنينا باهيد وفرب بدن تاعي. وح إلهي ما بحنكره. waxaan ka codsanaynaa inay noo siyaadiyaan oo ma garanaysaa walaalaha ay noo bilaabeen ay si wanaagsan noogu wadaan marka walaalayaal waad mahadsantihiin waxaan idinka rajaynaynaa insha Allah inuu Ilaahay dambigiina dhaafo Ilaahay jannada ka waraabiyo inuu Ilaahay maalkooda barakeeyo inuu Ilaahay waxooda deeqsiyo insha Allah waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay u gargaara si inuu gargaareen inuu Ilaahay ka qabta ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa marka waxaan idinka doonaynaa inaad annagana wixii aad noo bilowdaan aad noo ziyaadisaan assalaamu calaykum waraxmatullah nuur caddo ceelwaaq waxay u jirtaa 30 kiiloomitir waa meelaha fogfogana hadda u soconay ka mid tahay waad u joogtaan abaarta intay leegtahay iyo baaxadeeda dadka walaalaha oo muxsiniinta oo wax soo dhiibay in aan idinku qancino oo dhibaatada dadka haysa aan idinku qancino oo la wadaagno hore baan u ballan qaadnay xooganaga annagana aan mutatawiciin noqono hore baan kugu ballan qaadnay dhalinyarta al-isxaan oo u soo dhiibteen deeqdaas ayadahna way soo gaarsiin ummadda annagana way noo keeneen annagana waxaan nahay odayaasha al-isxaan ay qabsadeen oo alla shaqeynayaan nahay waa u joodaan halkan waxa waaye waa warihii ay ummadda ka cabi jirtay waaga ay berisamaadka ama roobabka ay da'aan meesha ay ku barbaxaan oo ummadda intay isugu timaado ay biyaha ka cabaan bay ahaan jireen hadda sanadkan roobkii muusan gelin wax yar baa gudaheeda ku hore wixii ku horeyna roobnima loo dhamaystay waa aragtaan waxay ku taalaa meesha maanta aan sawirka hadda kaga soo qaadayna waa nuur caddo weey meesha hadda ay wartaan ku taalo reerka meeshaan degan ilaa 70 qoys ilaa 80 qoys waaye 80 kaas qoys iyo xoolahooda wartaan bay ku noolaayeen wartina sidaas bay noqotay way goodi dhammaan reer miyiga oo dhan awal warahan ay ku tiirsanaayeen oo noloshooda ay ku tiirsanayd warihina waa go'een saasaa marka keentay oonka zaa'idka iyo cabashada iyo qaylada iyo waa warayda saasaa keentay webi madankan muusan lahayn oo webi ma lahayn warahan markii laga sii taga ceelal baa loo aroori jiray ceelasha hadda 30 kiiloomitir ceel u jiri waad garan ka dhaa biyihii laga keenay in xoolo aysan ku noolaan karin haddana xoolihii oo caata ha arooray markii la yiraahdo 3 kameelood 2 meelood dhexda looga sii tagayaa ilaahay marka waxaan leenahay ummadda ha u gargaaro ilaahay ka maanta waxa uu yahay taariikh 4 bishii 3aad 2021 annagoo ah odayaashii degmada Caalwa kamid ah waxaan halkaan ka cadeynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeye dadka deeqda soo baxsaday ee dhalinyarta al-ihsaan soo marsiiyay ay si mataqaana wanaagsan ay u soo gaartay dadkii u baahnaa ama mudnaanta u lahaa waxaan maleynaa waa taqriiban 30 kiiloomitir dhul maxaan ku raay u jira biyo dadkaas ay xoolahoodii gaadiidkii u gaari karin dawdi xoolihiina aysan u gaari karin biyaha hadda aan keennay ma ahan biyo xoolo la waraabinay waa biyo bini'aadamka naftiisa kali uu cabay xoolihiina maxaan ku raaddaa sidaas ay ku ooman yihiin wixii aanan gaari karin ceelkii ama maxaan ku raaddaa intaas aan ka aroori karin
dhibaatadaas ayada maxaan ku rahdaa way jirtaa. hadda waxaan joognaa warihii waaweynaa oo dadka reer miyiga cabi jireen. tan waxay tusaale u tahay dadka dhibaatada haysa ayay tusaale u tahay. dadkan ma gaari karaan meelaha hadda tusaale ahaan waxaa ceel ugu dhow meesha la yiraahdo Dhamaso waxay u jirtaa 40 kilomitir, Ceelwa waa 35 kilomitir, Alongo waxay u jirtaa 30 kilomitir. ma la dhaqaaqi karo. walaalaha annagu Alixsaan hadaan nahay wax noo soo wakiishay inaan geeno. waxaad arkaysaa inaan meelihii baahiyaha loogu talagalay dadku dhib qaba inaan geeno. haddana waxaan ku wajahanahay meelahan iyo meelo ka sii darno telefoon noogu soo dhacayaan. markuu codkanaga iyo muuqaalkanaga idin soo gaarno waxaan rabnaa sidii shalay aad noo garab istaagteen inaad noo garab istaagtaan. meelihii kale aad nagala soo xiriireysaan cadeemaheedu waxay ku qoran yihiin boorkan dambe. insha allahu tacaala ilaahay dhibaatadii abaartana naga saaro. idinkan waxaad la soo baxdeen ilaahay maxaa lihi jiray bedelkeeda khayr qaba idin siiyo. asalaamu calaykum. waa ku siinaa caagta qaada bay soo ducee annaga waa ka naxnay waa dad walaalo oo waxaan nahay dhibaatada ku gaartaa ka naxnay marka waa ka naxnay qaado waxaan annaga hadda ma ogeyn dhibaatada inay jirto insha Allah wallahi barakay insha Allah عند جامع عبد العزيز أنا معانا فاضل محمد بالله فاضل محمد شو بالله وكان يدي بالله كان قرب بعدين كرت دي ود قرب ما كنا بيسكوي هذا لفظ عادي ما صح هذا كرت ويلك تاو أركض أنا اللي ويلك يو يالي حان يالي حان ما تسعده عده حق فرداء أنا يوم لما كرتين عن عندها كتب تمار كرتو ساري مكلية تمار هدي عينك لو جويا دعي لو جويا دبكيس لو جويا وحنا وحنا قبل توري مركع عاش لقى سارة لقى داي عاقت الكرت ولا ودري كرتونا لا عقد يا بكرة الوسيط هذا يا عاقت كرتونا عقد لقى دري لا عقد بلا دري مركز دمار كني بديران الربيم إيه ديران برينا دمار كان مركو الصان وعلاش لقى سارو يدنا كداي لا بكرة إلهي باني بولايو مرك إن شاء الله تعالى ونفتح وحب كم يمسن مرك غير بركة يسوقنا إن شاء الله تعالى وأركيسان ولقوي الصوماليات واي إذا تكون حياة أنا دمانت بيا وكان إلهي نصيب ويا لي بيو صوص سوق جالسينه مرك غير بركة يسوق الجامع إن شاء الله غير بركة يسوق أيها المعنى إن شاء الله أيها المعنى رتدان أيضا بيسن أو دانسن أو عروتي يعد الله صوّله لما كانوا كهر مادين كريتدي الوهد ويد ثاني قدرة اللاعين عاقتني ويجوز الدلدليين عاقتي dadkii la joogayna fara idil uu ku fakaday oo Ilaahay subhanahu qaadir ah bixiyo way arreen dibkaan baa la geystay marka caaq dhaqanna ma laha lugu karatadna oo dhaansanayna sidaan baa la iga yeelay وكوا عاقتي oo dilacsan yihiin wax alla wax yihiin toori baa la wada galiyay lugiina saana la iga yeelay marka waxa dhaansadana ma laha isnaayeen oo cidda loo soo wadi دمنا بلا بلا جرين قال عليك لفتات gudaha Soomaaliya way ويل كان gudaha Soomaaliya way يا وحيلة مركز وحيلة يا ولد كرتة كبر بقى ودي ويل كان هاي هذا ربنا كرتة ودي هاي محاول ما أنت أيضا بالكور حركة جرت هذا خررنا الصبح هنا أي نوع ما الناس مطر إنه كتير صح أمريكان سوفري صح سامك نوع أنا جاري أركبه ما عرف كان صح ما عرف يقدر ورده يسوق ما ينقبح صح ريقه ما راس أنا عربي يسوق على صبح بابور بنقول عيسى صح مركلا قديتي مال طبعا كو عربي كرة نال بنقلي ود مال عريا كل عصاية أي قومي طبعا لا بيجرا قولين كمان كرتدي عن بدني وماشي كنا فني كوي جراء عرف ما نمك محاول ذي بعدين كرتنا بدي كرتنا سامي حاسدني ما كليح عندنا مركز لغات ku baxsat insha Allah ta'ala ilaahay naftaada wax ka qayb badan waa aragtaan waa dad ayagoo iska masaakiin dhibaatada ku jira dana ciidamada Kenya sida ay yeelayaan meeshan aan joogno waxa la yiraahdaa tuulo baraka ayaa la yiraahdaa waa dhul Soomaaliyeed waaye ma ahan dhul Kenya ma ahan waxaan lagu yeelan waa dhul Soomaaliya marka Ilaahay dhibaatada naga bixiyo walaalayaal waa arkaysaan xaaladda ku jirno maanta waxaan ku soo aadnay tuuladan dhibaatadaas ka jirto biyana waan u keenay annagu waxaan dhalinyaradii Alixsaan Ilaahay ajri xasanaad idinka siiyo insha Allah ta'ala Soomaali
maalin bay uun ay maxaa la dhihi jirtay dembiga laga galay ay cadaalad heli doontaa insha allahu tacaala qalbigana kama dhigi jabayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh saddexaad 2021 waxaan taagannahay tuulada la yiraahdo tuulo mataqaanaa tuulo barako waa tuulo ku taala nawaaxiga Ceelwaaq waa dhulka ay ka jirta abaarta ba'an iyo oonka iyo rafaadka iyo colaadda maxaan ku raadaaye saad maqlayseen hadda waxaa ka maxaan ku raadaaye hadda ninka odaga hooyla taagan qowskiisa gaar ahaan waxaa ku dhacday in maxaan ku raadaaye ay laga burburiyey gaadiidkii uu maxaan ku raadaasanayay oo ku noolaanayay ee ciidamo ka burburiyeen cid wax u qabanaysana aysan jirin hadde arintaasna de way hore ugu jirtay oo maxaan ku raadaaye degmada Ceelwaaq dhibaatadaas hore ugu taagneed waxaa marka aan idiin sheegaynaa dadka muslimiinta ee dunida dacaladeeda jooga ee muxsiniinta walaalayaal dadka walaalihiina waad u gargaarteen ilaahayna idin gargaaro waxaad u qabateen waad caawiseen ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayda caawiya idinkana waxaan idinka codsanaynaa arintaas ayada inaad sii laba laabtaan nimankan dhalinyarta oo ragga maxaan ku raadaaye annaguna aan odayaasha u nahay oo al-ihsaan ayaguna waxa way shaqadooda way guteen waajibkooda way guteen ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaguna ajir iyo thawaab ka siiyo intii soo tacaawuntayna ilaahay ha barakeeyo annaguna maxaan ku raadaaye wixii soo gaaray ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadaalad ku sameeyo allah naga dhigo dadkii maxaan ku raadaaye u mudnaa oo u xaq lahaana gaarsiiyo hadda intaasaan ku soo koobaynaa waxa weeye inaad maxaan ku raadaaye dadaalkiina sii laba laabtaan ka codsanayna wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum الدنيا ماشت كسب بحسان بدل كذا الله إذا سيو آمين الدنيا آخرنا الله إذا الليبان وصيل بجر جبارا لنا يقول الله والله واحترى ولا الله واحترى وعاد بعض وقترتين وعلينا واحترى وكبر وصعدوا بشباب كلام مستك أروري رمال وحان عصنينا الإحسان هنا بيها أي وأنا هل بيه أي نوع دقدي وأنا ما سيهين وحان عصنينا هنا بيها نوكريا باهنا يالك ولا الله نقول aad u dhawaataysan ay nasoo caawiya dadku waxaan ugu ciidaynaa ilaahay inuu barakeeyo oo islaamka noo soo gargaarin ilaahay uu gargaaro maxaan ku raahadashayna khayr bay ka hadleen intii wax soo dhiibtayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala jeebkoodan allah barakeeyo awlaadoodan allah barakeeyo inta loo soo gargaarayna ilaahay baa deeqi kare ilaahay waxaan ka rajaynaynaa naxariista rabbi in ilaahay ayagana uu siiyo kuwa maxaan ku raahdaa soo sadaqaystayna آخرضوا ذي أدون كذا بإله سبحانه وتعالى إنه كون أجيو أنتي محن كرا ورك جارسيسي أو أخذ ميسي أو دلنيرة محن كرا على حسانة أيقون إله سبحانه وتعالى أجر ثواب إله كسيو عمل كذا إله سبحانه وتعالى هو ناجيو إله سبحانه وتعالى أنا ذاتك كربيسن كربضة الله كفيدة مد خارج جوجا مد دلك جوجا مد جوجا إلهنا سبحانه وتعالى صومالي درمان تاد وادباتي سنتاي وخاصة قبل كذاتك جوجا عبارة بعيس إله عبارة إنه نقد صاروا ونحرس إله أروري رمال dhibaatada ka war ilaahay sabto waxa kamid ah bismillaah diin nastaciin ala umur dunya wa diin wa sallallahu ala sayyidina muhammad annaka horta dhibaato waan haysataa oo abaar baan haysataa abaar kulul oo aad u kulul oo biyo la waayay oo baadku cariiri galay yaan haysataa ilaahay baan u sheegnaa subhanahu wa ta'ala alliina samaystay ayaan u sheekaa oo ilaahay idinkiis baa tahay dadka waa isdhaamaaye loo soo gargaarayso waa u sheeganaynaa insha Allah waxaan rabnaa inay noo soo dadaalaan waan rafaasannahay biyahana siiyaan waana siiyeen waa ugu mahadinaynaa waa ku mahadinaynaa waa ugu mahad
saddexaad 2021 waxaan taaganahay tuulada la yiraahdo tuulo matana tuulo barako waa tuulo ku taala nawaaxiga Ceelwaaq waa dhulka ay ka jirta abaarta ba'an iyo oonka iyo rafaadka iyo colaadda maxaan ku raadaaye saad maqlayseen hadda waxa ka maxaan ku raadaaye hadda ninka odaga oo ila taagan qowskiisa gaar ahaan waxa ku dhacday in maxaan ku raadaaye ay laga burburiyay gaadiidkii uu maxaan ku raadaasanay oo ku noolaanay ee ciidamada ka burburiyeen cid wax u qabanaysana aysan jirin hadda arintaasna de way hore ugu jirtay oo maxaan ku raadaaye degmada Ceelwaaq dhibaatadaas hore ugu taagneed waxa marka aan idin sheegaynaa dadka muslimiinta ee dunida dacaladeeda jooga ee muxsiniinta walaalayaal dadka walaalihiina waad u gargaarteen Ilaahay ha idin gargaaro waxaad u qabateen waad caawiseen Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay'ad caawiyaadinkana waxaan ka codsanaynaa arintaas ayada inaad si laba laabtaan nimankan dhalinyarta oo ragga maxaan ku raadaaye annaguna aan odayaasha u nahay oo al-ihsaan ayaguna waxa way shaqadooda way guteen waajibkooda way guteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaguna ajr iyo thawaab ka siiyo intii soo tacaawuntayna Ilaahay ha barakeeyo annaguna maxaan ku raadaaye wixii soo gaaray Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadaalad ku sameeyo Allah naga dhigo dadkii maxaan ku raadaaye ummadna oo xaq lahaana gaarsiiyo hadda intaasaan ku soo koobaynaa waxa weeye inaad maxaan ku raadaaye dadaalkiina si laba laabtaan ka xuseenayna wabillahi tawfiiq wasalaamu alaykum